calaamadaha ugu waaweyn ee lagu arki karo qofka qaba anemia, khaasatan iron deficiency anemia, waxaa ka mid ah chlorhydria oo ah in cidiyaha ay god galaan una ekaadaan qaab qaandada oo kale spoon shape sida sawirka aad ka aragtaan. Si lamida waxaa ku arki kartaa in conjunctivada ay isbedesho oo ay caddaan noqoto, taas oo tilmaamaysa in anemia ay jirto sida sawirka aad ka arki kartaba. Sidoo kale calaamadaha kale ee lagu arki karo qofka qaba iron deficiency anemia waxaa ka mid ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan ka hadli doonaa iron deficiency anemia oo ah nuuc ka mid ah anemiyada. Waxaan sharaxaad ka bixin doonaa iron deficiency anemia waxa ay tahay, maxaa sababa, calaamadaha lagu ogaan karo qofka qaba iron deficiency anemia, si lamida dadka u nugul inay ku dhacdo, iyo weliba qaabka loo daaweeyo looguna hortagi karo. Intaas ayaan ka hadli doonaa hadduu Alla idmo. Marka hore, maxaa la dhahaa iron deficiency anemia? Sida magacaaba aad ka fahmaysaan, waa in iron jirka ay ku yaraato. Ironna waa maado muhiim u ah jirka, taas oo ka qayb qaadato soo saarista ama samaysanka dhiigga. Sidaa daraaddeed, haddii iron jirka ay ku yaraato, waxaa imaan doona in dhiiggana jirka uu ku yaraado, oo waa marka aan dhahno qofka HB-gaaga ama hemoglobintaada ayaa hooseyso. Sidaa daraaddeed, iron waa maado muhiim u ah samaysanka dhiigga. Si lamida waxaa jiro fitamiino ka qayb qaato samaysanka dhiigga, kuwaas oo ay ka mid yihiin vitamin B9 loona yaqaano folic acid, iyo weliba vitamin B12 sidoo kale loo yaqaano cobalamin. Haddaba iron deficiency anemia inay dhacdo, irontaada inay yaraato, maxaa sababo? Waxyaabaha sababa waxaa ka mid ah in qofka uu dhiig baxo, waayo qofka haddii uu dhiig baxo waxaa dhumaya iron badan, oo ironta dhiigga ayay ku dhex jirtaa sida caadiga ah. Sidaa daraaddeed, haddii dhiig badan uu kaa baxo, waxaa lagu qasbanaan doonaa in ironti ku keedsaneed oo protein form ku ahayd la geeyo bone marrow-ga, kadibna ay bilowdo in dhiig ay soo saarto, maadaama dhiig badan uu jirka ka baxay. Haddii dhiig bax uu sii socdo, waxaa imaanaysa in ironti ku keedsanayd ay dhammaato oo la wada isticmaalo, taas oo ka dhalan doonta iron deficiency anemia. Waxyaabaha kale ee sababa waxaa ka mid ah lack of iron intake, oo ah in qofku uusan qaadanin iron ku filan, oo waxaa laga wadaa in qofka uusan cunin cuntooyinkii laga helayay maadada ironta. Kaloo ka mid ah in iron badan aad qaadatay laakiin malabsorption ay jirto oo jirka uusan nuugaynin. Sababaha loo nuugu leeyahayna ay ka mid tahay isticmaalka daawooyinka qaar sida proton pump inhibitor, daawooyinka loo soo gaabiyo PPI, iyo weliba in surgical removal lagu sameeyo qaybo ka mid ah mindhicirka sababa la xiriira intestinal diseases. Markaan waxaan rabnaa inaan isla fiirino calaamadaha lagu ogaan karo qofka qabo iron deficiency anemia. Qofka irontiisa ay yar tahay, calaamadaha lagu ogaan karo waxaan u kala qaadaynaa laba qaybood. Calaamado common anemia ah oo anemia kasto yacni laga helayo. Anemiyada sidaa waan ogsoonahay way badan tahay, way noocyo badan tahay, iyo calaamado u khaas ah iron deficiency anemia. Kuwa commonka ah oo anemia kasto laga helayo waxaa ka mid ah pale skin, oo ah in jirka maqaarkii ama maqaarka midabkiisa uu isbedelo. Sidoo kale waxaa ka mid ah in qofka neefta ay dhibto amaba ay yaraato neefsashadiisa. Waxyaabaha kale ee mataqaanaa ka mid ah oo calaamadaha u ah waxaa ka mid ah cagaha iyo calaacalaha inay qabow noqdaan, cold hands and feet. Si lamida waxaa lagu arki doonaa chest pain oo ah feere xanuun. Intaas waa calaamado ay ka sameyn yihiin all types of anemia. Calaamadaha u khaaska ah iron deficiency anemia waxaa ka mid ah chlorhydria. Chlorhydria maxaa waaye? Chlorhydria waxaa waaye in cidiyahaaga ay u ekaadaan spoon shape oo sida qaandada camal ay god yeeshaan. Waxayna ka mid tahay calaamadaha ugu waaweyn ee lagu arko qofka qaba iron deficiency anemia. Waxyaabaha kale ee lagu arki karo waxaa ka mid ah brittle nails, oo ah in cidiyaha ay si fudud ku jabaan ama in cidiyaha ay yeeshaan longitudinal ridges. Sidoo kale in faruuryaha ay nabro ka soo baxaan, khaasatan corner of lips. Sidoo kale waxaa lagu arki doonaa oral mucosa iyo conjunctivada inay noqdaan kuwa midabkooda uu isbedelo oo caddaan inay noqdaan. Calaamadaha way badan yihiin. Waxaa kusoo koobaynaa calaamadan oo ka mid ah kuwa aadka loogu arko dadka qaba ama dadka irontooda ay yar tahay. Calaamadan waxaa la dhahaa bika,
oo ah in qofka uu cuno waxyaabo aan habboonayn sida dhuxusha ama carrada, si lamid ah dhoobeyda inuu qofka iska isticmaalo, si lamid ah barafka inay aad u jajabsadaan oo ay ruugaan. Sidoo kale wareer ayaa lagu arki doonaa qofka qaba iron deficiency anemia. Intaas markaan ugu gudubno calaamadaha lagu arki karo iron deficiency anemia, markaan waxaan rabnaa inaan isla fiirino dadka u nugul inay ku dhacdo iron deficiency anemia, risk factors of iron deficiency anemia. Dadka u nugul waxaa ka mid ah hooyada uurka leh. Hooyada uurka leh waxay u baahan tahay iron badan si cunuga ilma-galeenka ku jira uu u helo dhiig ku filan si koritaankiisa ay uga qayb qaataan. Si lamida dadka u nugul waxaa ka mid ah beeraleyda, oo inta ugu badan beeraleyda waxay isticmaalaan khudaar. Khudaartana qaybo ka mid ah waa laga helaa ironta, laakiin dhibaatada jirta waxay tahay iyagu ma ahan easy absorption, oo waxay u baahan tahay in foomka jirka ay ku soo gashay oo ah ferric form laga bedelo loona bedelo ferrous form. Shaqadaas beddelka ah waxaa qaban doona hydrochloric acid, vitamin C iyo ferric reductase. Sidaa daraaddeed, sida aad ka dareemaysaan direct ma ahan, oo waxay u baahan yihiin factors kale si loo soo bedelo. Sidaas ayayna ku noqotay not absorbable easily. Laakiin ironta kale ee aan ka helno hilibka noocyadiisa kala duwan si fudud ayuu jirka ku nuugi karaa. Haddaba waxaan rabnaa inaan fiirino daaweyntiisa, qaabka loo daaweeyo. Daaweynta mar kasta waxay ku xiran tahay waxa sababay in la ogaado. Tusaale, waxaa laga yaabaa in dhiigbax guda ah uu jiro internal bleeding. Sidaa daraaddeed, marka hore waa in dhiiggaas la joojiyaa, kadib la ogaadaa heerka irontaada ay marayso. Haddaysan darnayn, daawooyin ayuu dhakhtarka ku siin doonaa, laakiin haddii leefalkaaga uu aad u hooseeyo, waxaa laga yaabaa inaad u baahan doonto in dhiig lagugu shubo. Qodobkiina ugu dambeeya waxay tahay complication. Complication waxay tahay dhibaatada ka dhalan doonta haddii waqti hore aadan iska daaweynin iron deficiency anemia. Dhibaatooyinka ugu badan ee ka dhalan kara haddii waqti hore aadan iska daaweynin ama waqti hore aadan iska maaraynin xaaladdan iron deficiency anemia waxaa ka mid ah in hooyada uurka leh ay u keento low birth weight, oo ah in cunuga ay dhasho miisaankiisa uu ka hooseeyo sida normalka ah. Si lamida in delay uu ku yimaado hadalka iyo socodka cunuga ay dhasho. Waxyaabaha kale ee lagu arki karo waxaa ka mid ah heart problems. Intaas ayuu noogu ogyahay ciwaankiina maanta. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.